taal tuula farxaan weeye waxaan guddoomiyihii tuulada halkaan waxa weeye dad barakacayaal baa deganaa aad u tiro badan oo 250 qoys ah ilaa 55 weeye waa dumeen guryahoodii dadkiina qaar baaba naf oo lala cararay oo adugu gaalkacay iyo hadda lala aaday tuulooyinka yaalla xarfi iyo bacad weyn oo naqaskii ku dhagay dadkaasi wax alla waxay haysteen waxoogaa iyada raashinka xataa guryahay u yaaleen maxamuud oo faarax baa wuxuu u keenay waxoogaa raashina xoogaagii mid walba buushkiisii u yaaleen buushkii biyihii baa qaatay dabayshiina waaba ka dulqaadayba waxa weeye meel kalay dhigtay dadkaasi waxay u baahan yihiin in la fiiriyo hoos loo fiiriyo laga naxo waxa weeyaan umulo waxa ku jira runtii kuwa laba habeen umulan baa ku jira kuwa habeen umulay baa ku jira xamilooyin dhaqaaqila ku jira shaybab indhala baa ku jira runtii dadkaasi waxa weeye gacan qabow iyo fiirin bay u baahan yihiin magacaygu waa Cawl Khaliif Cabdi waxaan deganahay kaamkan Ramaas waxaa jirta roobkan duufaanta tirada badan leh baa jira inuu noo yimid waa aragtaan hadda indhihiina ay ka muuqdaan sida ay wax u yeesheen dabayshaasi waa aragtaan buulashiisa ugu disan yihiin hooyooyin tiro badan baa jira oo ay wax ku gaareen waxaa jira dabaylahaasi intaasay noo geysteen waana aragtaan buulashiisa u disan yihiin waa u jeedaan idinka indhihiina waa inay macallina raxmaan raxiin magacaygu waa Faadmo Jaamac Ciise haddii aan ka warbixiyo kaamkan barakacayaasha degmada Xarfo Ramaas kaamkan khasaaraha soo gaartay roobkan haddaan ka warbixiyo kaamkan dad badan baa ku noolaa oo barakacayaasha laakiin khasaaraha hadda ka dhacay tariyo roobkan hamee hore ku da'ay oo duufaanta watay waxa soo gaaray waabtii ilaa 90 guri waa dumeen dadka danyarta deganaayeen dadka danyarto aad u nugul habraha duqaha reerayoga xaasaska ah ay deganaayeen waa dumeen waxay ka samaysnaayeen cooshado iyo mariyay ka samaysnaayeen dabayshiba intaan roob ku diin la biday oo la carartay dadka marka dadkii degmada u soo gurmatay iyo dadkii ehelada u ahaa baa u soo gurmatay dadka waa la badbaadiyay dad badan buu khatar galiyay roobku caruur yaryar waaba la tagay gaaray dad iska cararay degmada u cararay isiiri dad baa ka soo badbaadiyay ilaahay cidna kuma dilay cidna kuma dhiman laakiin khasaare xoog la dadka soo gaartay hadda wali jabal lagu hayaa magaalada dhexdeeda oo aan imaan intii kalena waabtoodii ku soo noqdeen oo dhisanayaan intii laga tagayna meeshoodii way degan yihiin xooga aan nugleyn adu intii nugleyd kulay waa la badbaadiyay habeenkii shalay magaalada inta badan loo guray loo daad guriyay inta joogtana cunnada waxa looga keenayay ay cunaan degmada looga keenay dhibaatada hadda oo ugu badan oo ay qabaan waxa weeye baahiba ugu daran hadda dadku ma noolaan kara dad socono cunin hadda waxa oran la tari iyo baahida ka taala kaamkan waa wixii la cuni lahaa wixii la huwan lahaa iyo hal la gaaraba waxa la cuno lama haysto waxay cunaan ma haystaan waxa ugu daran oo kale hadda roob baa yimid biyuhu waa soo rugmadeen meel kasta ku soo rugmadeen ummadda inta tar looga degan ma haystaan wax ay suuliyaal ma haystaan banaanka ay aadayaan u jeedaan oo caafimaad ma haystaan marka hadda waxa ugu daran inay helaan hooy ay dhaxanta ka galaan iyo cunno inay helaan iyo dawo inay helaan saddexda waa ugu muhiimsan tahay daay wuxuu lahaa saameyn badan buu lahaa iska daa buusha dad ku nool mataqaanka magaalada deganaa baa guryihii iyo mataqaana waxa way nafta u yaabay iska daa qof mataqaana marka banaanka joogay runtii meeshan waxaa dad badan baa habeenkii laga dadgureeyay oo mataqaana magaalada la geeyay si mataqaana loogu badbaadiyo mataqaana waxa weeye meeshan maartay waxa weeye ay dabaysho maartay iyo guryahoodii hoogay ka dumisay wili waa maqan yihiin si gudoomo sheegaba qaybna u yimaado wato mataqaana waxa weeye dhisanayaan waabkoodii waxa weeye baahiyo badan baa ka jira ugu muhiimsan waxa weeye sida gudoomo sheegaba mataqaana waxa la cuno qudururgii iyo hoygii iyo mid ugu daran mataqaana nadaafadii oo mataqaana banaanadii ay aadayeen waxyaalihii maartay banaanka loo aadayay ku soo rugmanaya meelihii ay seexanayeen ay joogaan taasaa maartay waxa weeye iyaduna caafimaad darada oo ka tahay walba haddana lagu jiro xilliyo roobada mataqaana roobku uu leeyahay marka cid walba mataqaana barnaamijkan waxa weeye ama qayb ka ah in arrintaas maartay si guud loogu gurmado oo wax loogu qabto Virginia ayaan ku hadlay magaca xildhibaanada golaha deegaanka degmada
bal anagu waxa weeye maaragtay wadayadu waa iska yadhahay balse insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan maaragtay aan si fiican ugu fiirsano hawshaas wixii karaankayaga aan ka qabano. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay ma iska leh guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland waxaan leeyahay jimco wanaagsan Ramadaan wanaagsan. Jimcadii Ramadaan ugu dambeysay iyo 10kii maalmood Ramadaan ugu dambeysay baan ku jirnaa. Ilaahay khayrkeeda hayna waafajiyo. Musiibada dhacaysa iyo mashaakilka adduunyada ka jira Ilaahay hana hareer mariyo. Maanta oo jimco waxaan maalintii labaad ku guda jirnaa kormeerkii aan shalay soo bilownay dhibaatooyinkii uu geystay roobkii daay hameen hore oo dabaylaha xooggan watay. Allah ayaa mahad iska leh sida dabaysha iyo roobku u socdeen waxuma ayaan dhicin oo khasaarada uu geystay waa khasaare hantiyeeduna wax naf ah ku baxday ma jirin. waxa ugu cuslay duunyadii geel ahayd oo aan shalay booqanay meeshii ay wax ku yeeloobeen dhowr 20 neef ahayd sidii aan shalay Ilaahay ka maaragtay bedel khayr qab hay'adin ka siiyaan maantana waxaan leeyahay bedel khayr qab Ilaahay duunyada hay'adin ku bedelo. maanta waxaan booqanay deegaanka Farxaan iyo IDB-ga ku yaala degmada Xarfo iyo IDB-ga Ramaas oo runtii iyagana khasaare xoog leh u geysteen dabaylihii iyo duufaanihii dhacayay hameen hore. dad jilicsan oo waayeel u badan iyo caruur baa ku noolay halkaas. Ilaahay waa ka badbaadiyay oo wax kuma yeelayn. dad waxa jira ayagoo guryahooda ku jira geeda ku habsaday runtii aad u waaweyn aad muuqaalka ku daawan doontaan se Ilaahay dadkii uu ka bixiyay. dadkii wali bacad bay jiifaan wixii bushashku u dhisnaayeen bushashkoodii dib ay u dhisteen laakiin dadku xoogaaga ay haysteen oo hogii iyo cuntadii baa roobku ka waxyeeleeyeen. dadka wanaagga jecel oo khayrka jecel oo muxsiniinta ah oo dadkaas wax tari jiray waxaan leeyahay ka qayb qaata meeshaas dhibaatada ka dhacday. dadku waxay u baahan yihiin hoy iyo hub iyo cunto intaba. waxaas ugu sii dana dadku meel ay ka galaan gambaadka iyo dhaxanta iyo dabaysha iyo roobka midna ma lahan. waxaan idin leeyahay Ilaahay dartii uga qayb qaata wixii dhacay Ilaahay baa loogu samrayaa waa dib Ilaahay keenay. dibtaas Ilaahay keenayna kollay dadkaas way ku samreen. Ilaahay baa mahadii ahaatay in dadkaasi ay maanta bad qabaan runtii cid tagtay baana arki karta meesha waxa ka dhacay. dadkaas waxaan leeyahay Ilaahay bedel khayr qab ha idin siiyo hantida ku waayay oo guryahooda ku waayayna waxaan leeyahay waxaan idin rajeynayaa bedel khayr qaba. aniga ku hadlaya afka maamulka gobolka Mudug waxaan leeyahay waa idin garab taaganahay wixii aan ka awoodnana waa ka qayb qaadan doonaa insha Allah. ilaa shalay shaqadii aan wadnayna dad badan baa la wadaagi doonaa waan rajeynaynaa in wax idin soo gaari doonaan ku samar dhibaatada Ilaahay keenay. anagoo dareemayna in samirkiinu haddaba uu ahaa taa markaan idin nimid dadkii xooluhu dhaafeen iyo dadkii guryuhu ka dumeenba saasoo ay tahay samir dabadii dadku waa dad jilicsan oo aad runtii dabayluhu waxyeeleeyeen. waxaan oranayaa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo warbixinteeda maantay wili roobabkii way jiraan waa nimco Ilaahay keenay. waqti adag oo abaara la soo maray laakiin Ilaahay waa naga soo furtay dhowrkii sano ugu dambeysay. Ilaahay dhibta uu keenay kaba gaban karo laakiin waxaan leenahay dadka xoolaha leh iyo dadka miyiga jooga iyo dadka meelaha buuraha jooga intuba ha taxadaraan hana ka fogaadaan meelaha biyo galeenka ah iyo maxay raahdaa meelaha bannaan oo ay dabayshu ku heli karto. waa taxadar mar walba musiibo Ilaahay qoray meesha ugu talagalay ku dhacaysa. waxaan oranayaa taxadara Ilaahay ka maangala musiibooyinka iyo dhibaatooyinka dhacaysa cid aan Ilaahay ahayn oo kafaalo qaadi karta noloshiina iyo culayskiina midna ma jirto. haddii dadku Ilaahay u cararaan oo Ilaahay wax weydiistaan oo Ilaahay ka magan galaan musiibooyinka dhacayana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa Ghafuurur Rahiim wa Aziizul Jabbaar.